magacaygu waa Xuseen Maxamed Guuleed maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Axmed Weyne magaalada Muqdisho. haddaan ka hadlo mawduuca ku saabsan manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ay soo saartay ee loo soo saaray wax lagu baro ardayda Soomaaliyeed, runtii waxa aad baan u soo dhaweynaynaa. faa'iidooyin badanna waa u leeyahay. faa'iidooyin u leeyahay ardayga wax baranaya, macallinkii wax barayay, maamulkii asaguna arrintaas ka shaqeynayay, waalidkii ilmaha wax loo barayay, iyo guud ahaan dalkaba wuxuu u leeyahay faa'iidooyin. ardaygu wuxuu ka faa'iidayaa inuu helo manhaj la heli karo oo aad mutawafir u ah oo kasoo heli karo magaalada buuggii u baahdo. wuxuu helayaa manhaj midaysan oo asaga iyo ardayga kale ee saaxiibkiisa iskool kala dhigta ay isku cashir yihiin wada soconayaan. wuxuu helayaa maalin amaha kamid hadduu iskoolkii uu jooga ka bedesho iskool kale u tago inuu duruusiisii oo meeshii maraysa uu kala qabsan karo. wuxuu helayaa ardaygu arday ay wax isla akrisan karaan oo waxaa laga awaawir dhici jirtay in ardayga iskoolkan dhigta iyo kan aysan waxba isla akrisan karin maadaama ay kala duruus yihiin. marka hadda arday waxba isla akrisan karaan fanfooradahu ardayda fasalada dugsiga oo dhan ayagoo iskoola kala duwan kala joogay wax isla akrisan karayaan. taas waxay sahlaysaa marka in ardaygii uu wax badan kala faa'idi karaan. waxay faa'iideynaysaa ardaygu inuu ardaydii ka horreysay walaalihiisa ahaa ama qaraabadii saaxiibadaha wax dhameeyay wax bartay waxay u faa'iideyn karaan maadaama manhajku uu midaysan yahay oo ay soo barteen. ayadoo shalay laga yaabay ardaygan iyo kii hore laba iskool kala baxay inay laba manhaj kala wataan oo laba buug kala wataan, manhajkan uusan barbar ka hayn ardaygan kale. arday marka faa'iido badan ayaa ugu jirta. haddii qaybta luqadda laga fiirshay xagga Soomaaliga loo soo badiyay dugsiga hoose dhexe Soomaaliyana wuxuu aad u fududeynaya ardayga fahamkiisii inuu fahmo waxa ardaygu ka hadlaya darsiga uu fahmo, su-aasha macallinka weydiiyay uu fahmo, layliga uu fahmo, midkii imtixaanka laga weydiiyana uu si sahlan u garto. macallinka iyo maamulka wuxuu u leeyahay faa'iido. macallinka faa'iido u leeyahay, wuxuu leeyahay manhaj habaysan oo israacsan oo dugsi hoos ilaa dugsi sare isku xiran oo ardaygii hoosta ka soo bilaabay dugsi sare maraya uu yahay arday dhisan oo wixii uu soo maray iyo buuggan meeshuu maraya isla jaan qaadayaan. meesha laga yaabo awal in ardaygu uusan duruusta noocaan soo arkay, wax kale soo arkay, manhaj maado kale waddan kale ku soo wartay, arday dhowr iskool kasoo kala bedelatay, intuu isku yimaadaan ba uu thaqaafo gooniya iyo fikir gooni u watay, isfahansiisku inuu adkaa. laakiin hadda ay sahlaananayso ardaygii macalinku inuu dadkii wax fahansiiyo uu diyaarsi ardaygu macalinku inuu wax diyaarsan karo maadaama buugtii ay sahlan yihiin, meel walba yaallaan, isku nidaamsan yihiin. macalinku sidiisa hal iskool kaliya ma shaqeeyo. hal yaaba iskoolka maanta ka shaqeeyo iskoolka ilaada laga yaaba sanadkan hadduu iskoolkan ka shaqeeyo sanadkan uu iskoolka dambe cusub uga tagaayo wuxuu ka shaqeeya wuxuu helayaa buuggii dara u soo dhigay. laga yaaba daraad in mid carabiya uu dhigayo maanta markuu iskoolka tagaan yahay mid ingiriisiha ku dhignaa. marka hadda waxa u sahlanaysa macallinkii inuu buuggii uu la jaan qaado, in muxuu ahaa baalkii ii sheeg uu qabsado buuggii isfahmaan oo darsigii markuu maantay sanadkan diyaariyo sanadba buuggii u yaqaanay ayuu dhigayo. waxaa kaloo waalidku wuxuu ii sheeg baalkii u faa'iideynaysaa waalidkii faa'iido u ah oo og waxa ardaygooda la barayo. awal waalidku iskool baanta isaga dirsanayay ma og wax la baray sida buuggoonaa ma caddayn manhajka la qaadanayo, buwaagta uu qaadan doonaa iskoolkaas u dhigi doonaa si gooniya umaana caddayn. ma mid asiga iskool u gooniyaha, mid laba iskool dhigtaa, ma midka carabiga, midka kiyana ma oqon. hadda waalidku wuxuu og yahay ardayga maxaa la baraya, ardaygii maxaa la baraya, maxaa la baray oo lasoo barana uu yahay sababta maqararka uu yaallaa, manhajka uu yaallaa, waa loo jeedaa waxa uu yahay oo wax laisla og yahay oo meel kasta uu ku kaca. guud ahaan dee waddankana waxaa ka dhacaysa faa'iidu leeyahay wuxuu leeyahay isla jaanqaad si dib la isula jaan qaadaya. ardaydii hal fikir ayay qaadanayaan. bahalkii muxuu ahaa ardaygu wixii u bartay yaa wax cad oo la yaqaano ah. waxaa jira isla socod guud oo ardadii ay isla socoto oo si guud hal imtixaan loo qaadaa uu sahlan yahay oo bahalkii muxuu ahaa waxaa jira oo ka soo baxaya fikir guud oo ku saabsan fikir guud ayaa soo baxaya ardayda isku meel ujeedaan hal siyaasad ay ka duulayaan maadaama manhajku uu ka turjumayo siyaasadda waxbarashada ee wasaaradda u degan. ardaygii kusoo baxa dugsi dhexe ilaa dugsi sare uga soo baxa waa arday meel loo jiheeyey, jihadii loo rabana kusoo baxaya. meesha awal laga yaabay in ardada ay kusoo baxaan jihooyin kala duwan oo midba uu waddankiisa fikir gooni thaqaafad gooni la imaanay
waxaa soo baxaysa jiil isku dhinac ujeeda waa marka intaas ayaan ka dareemayaa baalkii waxaan kusoo koobaya way tira badan yihiin faa'iidooyin laakiin isa kusoo koobiya waxay kala duwan yihiin runtii farqi aad u weyn ayaa kala dhexeeya waxay soo leedahay kafee kala dheeri waxyaalaha soo sheegay faa'iidooyinka cagsigooda ay ahay tusaale maxaan kala jeedaa waxaa la dhigi jiray manhaj kala duwan oo wadamo kala duwan leh waxay noo soo saarayeen arday kala fikir duwan oo kala thaqaafo duwan oo mid yahay carabi waddan carabi wax ka soo bartay thaqaafo carabi wato mid thaqaafo oo baalkii Kenya iyo wato mid Uganda mid meel kasta oo xagga fikirka iyo thaqaafada ardayga soo baxaya sababta waxaan leeyahay manhajku inuu saameyn ku leeyahay fikirka ardayga iyo aragtidiisa marka aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxay labo ardaygu wuu ku dhibanaa iskoolka uu aadayo manhajka uu dhiganayo lama aqoonin saddex way adkeed ardayga duruusta in laga saacido maadaama manhaj u gooniyo iskoolkaas uu dhigi karo oo horay ardaygii kale oo walaalkiisa wax soo martay aan loo aqoonin baalkii muxuu ahaa dhinacaasna ay xoogaa ka adkeed waxyaalaha ka imaan kari waxaa kamid ahaa arday tusaalaan iskool buu dhigtaa iskool kala taga markuu iskool kala tagaa leeyahay maadadaas miyaa carabi ku qaadana anaga maado kale ingiriis aan ku qaadana isbedel iyo imaaniga markuu ardaygu iskool kala aaday marka manhajkaanu ka duwan yahay waxyaalahaas oo dhan caqabadahaas dhan way suuleen manhajku laftiisu wuxuu u baahan yahay runtii horumarin oo hadda waa bilow markaan leeyahay saas oo ammaanayo macnaheedu maaha dhamaystiran yahay laakiin waxaan ujeedaa inuu yahay bilow fiican manhaj wuxuu ahaa ishii baarkii khaladaad yaroo la ku jiraa in laga saxa u baahan dhamaystirka u baahan yahay waxaa kamid tusaale ahaan hadda waxyaalaan ka arkayna waxaa kamid ahaan inaysan lahayn inaysan la socon buugta dhihi xagaha macalinka aysan la soconin waan rajeynayna insha allah haddii ilaha yihahdo inuu macalinka saacidi lahaa haddii la heli lahaa qaab qoraaleedkiisa waxyaala badan ka qaldama dib loo soxaan rajeynayna waxyaalaha rajeynayna oo asleenahay in laga saxa fiicneed waxaa laga yaabaa qaababka mawduucya isugu aadan yihiin siday u kala horeeyaan iyo xoogaa in iyagana tala kale dadkii khibradaha ay dib loogu laabto oo markii hal sana la dhigo dib xoorun loo sameeyo xoorad waxay kasoo baxan insha allah dib loogu sixi doono marka manhajkii hore iyo manhajkan waxaan aad buu soo dhaweynayna manhajkan oo isleenahay shaqada awood waxba nooga fududayn doonaa intii hore insha allah ardadan waxaan leeyahay maasha allah nasiib ayda leedihiin runtii qola waad waqtiga soo baratay qola waxbay dadkeena hadda jooga dadaha soo bartay waqti hore dowladdii xoog badan ay joogtay ee iskoolaadku ay lacag la-aanta ahaayeen iyo waxbarasho ay tayada lahayd qolo anigu aan kamid ahay waxaan kusoo aadnay waqtiga burburka oo anagoo ordayno jidka xabada lagu qabsanayaan wax baranaynay manhaj timidaysan aan lahayn in wax noola dhigaamo ay wax weyn nala ahayn inuu noola dhigaamo qoladana waa naga nasiib anaga waa naga nasiib fiican waxay haystaan manhaj fiican oo bilow ah nidaamsan oo luqadooda ku qoran oo min dugsi hoose ilaa dugsi sare isku dhinac ujeeda dasigu shala soo qaatay uu kaabayo kan maanta uu qaadanayo kan maanta uu qaatayna uu dhamaystir yahay kii darad u qaatay marka waxaan leeyahay ardadaas ka faa'iideysta iska ilaaliya wax walba waxbarashada dib kaga dhigaya iska ilaaliya manhajka waxaa la yidhahdaa hadda waddankana ka jiro oo adeedo ardaygu fasalka ka buuday fasalka lu aada taas kale iska ilaaliyaan oo ay manhajkan dhamaystiran si isku xigta u qaataan si ugu soo baxaan arday meeshii laga raba yimaada sababtoo manhajkan dugsiga koowaadka ilaa iyo 12aad waxyaalo isku xiga ayuu samaynayaa silsilad isku xiran waa haddaad silsilad iska boodo meesha aad ka booday berri waxay kaa noqonaysaa meel kaa bannaan oo soo buuxinteeda kugu adkaato sidaa daraaddeed ardaydu inay ilaaliyaan silsiladda waxbarashada iyo jaranjarada inay ilaaliyaan inay ka faa'iideystaan buugta in aan lagu dheelin oo manhajku runtii wuxuu yahay wax qarash badan ku baxay ardaygu buugga aad maanta heshay ka faa'iideyso adoon jeexin adoon halaynin meel dhig berri kan kaa dambeeya si wax ugu barto kii walaalka ahaa ama kii qaramaha kii saaxiibka wax ku barto waa runtii maadaama aan dareemayno dee manhajku in muddo loo sii shaqeynayo waxaan rabnaa halkii manhajba inay wax ku baran karaan 10 arday oo kala duwan si dareemka laga faa'iideysto maasha Allah. Assalamu calaykum waraxmatullaahi